صافي رمضان مبارك قولي ركض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaad naga daawanaysaan oo walaalaha jarmalka YouTube anigu waa Cabdullaahi Qaam. barnaamijka waxaa maanta ila daadihi doono Maxamed Cabdirashiid. barnaamijka aad nooga barateen su'aalaha diiniga iyo jawaabaha waxaa dhanka kaamirada inoo qaabilsan walaalkay Mustafa Shiru. waxaan su'aalaha inoo weydiin doono mar labaad iyo mar saddexaadba walaalkay Usmaan Maluda sida wada taqaan. haddana waxaan guda gali doonaa barnaamijkeedii su'aalaha iyo jawaabaha ay diiniga ee bisha barakeysan Ramadaan aad ka daawataan YouTube-ka walaalaha jarmalka. sidoo kale waxaan rabnay inaan idin la socodsiino in barnaamijka laga dhigay maalinta jimcaha iyo sabtiga iyo xadda. inkastoo waqtiga aad iyo aad noogu yaraado waxaan jeclaanay inaan xilliyadaas idiin soo gudbino. sidaas oo la socda fadlan hana ka ilaabin inaad subscribe saarto, like, share, comment, gambareelka furo si aad video walba aan dubno oo kugu soo dhaco. haddana waxaan guda gali doonaa barnaamijkeeni insha Allah taala. la socdo wanaagsan. waa mahadsan tahay Cabdullaahi Qaam. su-aasha ugu horeysa ee barnaamijkeena haddaynu ku bilaabno waxaan weydiinaynaa isla qaam waxaad sheegtaa sanadka islaamka loo yaqaano sanadkii murugada. haddii mar labaad aan kugu celiyo waxaad sheegtaa sanadka islaamka loo yaqaano sanadkii murugada. sanadkii murugada su-aashaas jawaabteeda hadda isku dayo waa xilliga ay dhinteen Khadiija binti Khuwaylid iyo Abu Talib. su-aasha ugu horeysa ee barnaamijkeenu aynu weydiinay Master Qaam waxay ahayd sidatan waxaad sheegtaa sanadka islaamka loo yaqaano sanadkii murugada. jawaabta uu bixiyay Cabdullaahi Qaam waa mid saxan. su-aasha labaad haatan waxaa weydiinaynaa Maxamed Cabdirashiid. su-aashana waa tan yaa ugu soo hor islaamay reer Madiina. haddii mar labaad Maxamed aa kugu celiyay su-aasha yaa ugu soo hor islaamay reer Madiina. su-aasha jawaabteeda hadda isku dayo waa Zacad bin Sarura. su-aasha labaad ayaa weydiinay Maxamed Cabdirashiid ayaa waxay ahayd yaa ugu soo hor islaamay reer Madiina. jawaabta uu bixiyay Maxamed Cabdirashiid waa mid saxan. waxaa ugu soo hor islaamay Sacad bin Surara. su-aasha saddexaad ee barnaamijka waxaa weydiinaynaa Master Qaam. Master Qaam dhigaaga fur su-aashan u diyaar garow. furin jannada yaa ugu hor galaya. hadda mar labaad su-aasha saddexaad kugu celiyo jannada yaa ugu hor galaya. jannada waxaa ugu horgalayo Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam. nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. su-aasha saddexaad aa weydiinay Master Qaam ayaa waxay ahayd sidatan jannada yaa ugu hor galaayo. jawaabta uu bixiyay Master Qaam waxay ahayd mid saxan. waxaa jannada ugu horgalaya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. su-aasha afaraad haatan waxaynu weydiinaynaa Maxamed Cabdirashiid. su-aashana waa sidatan waxaad sheegtaa dembigii ugu horeeyey ee alle loogu caasiyo. haddii Maxamed mar labaad aa kugu celsho waxaad sheegtaa dembigii ugu horeeyey ee alle loogu caasiyo. su-aasha jawaabteeda hadda isku dayo waxay noqonaysaa waa kibir oo ibliis ka kibrayn oo alla u sujuudo. su-aasha afraad ee aa weydiinay Maxamed waxay ahayd waxaad sheegtaa dembigii ugu horeeyey ee alle loogu caasiyey. jawaabta uu bixiyay Maxamed waa mid saxan. wuxuu ahaa kibirkii uu ibliis ku kibray inuu u sujuudo nabi aadam. su-aasha shanaad ee barnaamijka waa Master Qaam. waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyey ee qof dila adduunka korkiisa. haddii mar labaad kugu celiyo waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyey ee qof dila adduunka korkiisa. su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayo waa Qaabiil binu Aadam wuxuuna dilay Haabiil. su-aasha shanaad aa weydiinay ku tartaarka su-aasha shanaad aa weydiinay Master Qaam waxay ahayd waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyey ee qof dila adduunka korkiisa. jawaabta uu bixiyay Master Qaam waa mid saxan. wuxuu ahaa Qaabiil binu Aadam oo dilay walaalkii Haabiil binu Aadam. waxaan soo gaarnay guntii iyo gunaanadka iyo su-aashii ugu dambeysay oo ah su-aashii lixaad. waxaynu weydiinaynaa Maxamed Cabdirashiid. waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyey ee qiblada u tukada. haddii mar labaad Maxamed aa kugu celsho waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyey ee qiblada u tukada.
toos allahu aclam nabi maxamed ba ahay ma hay jawaabtaas ma ahay cilmigay kamid tahay. su-aasha ugu dambeysay barnaamijkeena oo aynu kusoo afjarayna barnaamijka waxaynu weydiinay maxamed cabdirashiid waxayna sidan waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyey ee qiblada u tukada. jawaabta uu bixiyey maxamed waa mid qaldan, iyadoo si ka faa'iidaysi ah waxaa jaanis u haysto masarqaam. waxaanu ku celinayaa hal mar su-aasha, waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyey ee qiblada u tukada. su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayo abubakar oo mano. su-aasha oo uu soo qalday maxamed cabdirashiid ayaa waxay ahayd waxaad sheegtaa qofkii ugu horeeyey ee qiblada u tukada, iyadoo oo mastarqaam si ka faa'iidaysi ah oo jaanis ugu helay su-aasha. jawaabtuu bixiyey waxay ahayd mastarqaam xitaa mid qaldan. marka sidaas darteed su-aasha waxaan u reebaynaa taageerayaashayna youtube-ka walaalaha jarmalka si jaanis comment ah iyaga jawaabta waa inay usoo bixiyaan. barnaamijkeeni maanta su-aalaha diiniga iyo jawaabahooda halkaani ayaa ku eg. waxaa ku tartamaya goobta saa horey u sheegnay maxamed cabdirashiid iyo cabdullaahi cali. guuleystaha maanta aan u hambalyeynayno waa master cabdullaahi cali oo ku magac dheer qaam. ciyaartii waxay kusoo dhammaatay tartanka 3-2. haddii aad ku darsanaysiin dhowr orah waa soo dhawaa karti mudanayaal. aad iyo aad u mahadsan tihiin asxaabta inagu xiran youtube-keena walaalaha jarmalka. waxaa waaye laba dhagax haddii laisku dhuftana kolley mid unbaa badiya, guushana mid un bay raacdaa. marka walaalka asagana waxaa waaye inkastoo hore uu soo badiyey maantana meeshaan iskaga jijiitay mafaate. marka waa kaada adigana 2 iyo 1 eray waxaa asxaabta leedahay. wallahi waxa waaye waa tartan aad iyo aad u fiican maasha allah. waa sidoo hore u sheegay laba dhagax hadda isku dhacaan mid baa jaba, marka kubaddan sideedu waa cadi madow. marka guusha isaga raacda waan ugu hambalyanaya. waxaan dadka na daawanaya ka codsanaya inay subscribe saaraan channelkan walaalaha jarmalka. waa channel aad u fiican oo laga heli doono waxyaabo badan, fiidiyooyin qosol ah, fiidiyooyin diini ah, fiidiyooyin oo dhiirigelin ah, wax walba oo u baahantiin. marka leegtaa ka iloobinaha share and subscribe. aad u mahadsantiin. sidoo kale intaan barnaamijka la gabagabeyn waxaan rabnaa inaan la socodsiino daawadayaashayna dunida meel walba ay ka joogaan tartankan socda bisha ramadaan. shakhsiga ku guuleysto haddaan nahay bahda walaalaha jarmalka wuxuu inagu leeyahay abaalgud jaa-iso oo ku farxo insha allahu tacaala. jaa-isadaasina insha allahu tacaala waxaa laga bixi doonaa masjidka weyn ee ku yaala magaalada Wiesbaden ee abubakar. insha allahu tacaala waxaana bixi doono youtube-ka walaalaha Germany, ma bixi doono masaajidka guddigooda, waayo waxaan bixinayo youtube-ka walaalaha jarmalka. laakiin xarunta lagu bixi doono waxay noqon doontaa masaajidkaasi insha allahu tacaala. sidaas iyo nabadgelyo. صافي رمضان مبارك Holy Records.